السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجك wuu ka xiisay xamaasad badan yahay barnaamijyadii hore. Maxaan saa ku iri? Waxaad aragteen hadalhayn baraha bulshada gilgishay ama ruuxday 24 saac ugu dambeysay oo ku saabsaneed in Sheekh Shariif Sheekh Ahmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ay u tanaasuleen beesha Mudullood iyagoo weliba Mudullood ama abgaal ka ordaya ceebtii ku dhacday 2016 iyagoo helay in ka badan 260 cod oo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya haddana aysan cod helin. aqalka sare iyo aqalka hoose isku daraba waa beeshii ugu badneed ee xildhibaano noocaas cod siiyaan haddana ceeb ay ku dhacdo banaanka ay ka jooga kursiga waliba loogu bedelay in waliba iyaga lagu handado kursiga oo xitaa naftoodii ay qatar gashay ama halis ay gashay. ragii sidaa waa shireen wasirta inaan banaanka keenaan rabaa. Sheekh Shariif oo raali noqo waa soo jawaabtay raali noqo. Xasan Sheekh oo raali noqo maxaan sirta u sheegaya ma dambi ba maya. waa rabaa caawa sheekhu horta warbixinta soo dustay waxay u soo dustay aniga oo Cabduqaadir Boosa iyo Cabdullaahi Maxamed Cumar Cabdullaahi Balwaan wariyaha aan filayo haatan mid kamid ah wariyaasha ugu shacbiyada badan baraha bulshada kaasoo anigaba aan ku xiranahay. Cabdullaahi Balwaan iyo aniga oo Cabduqaadir Boosa xogtaa waana la wadaagay oo way soo dusta of course laakiin waana la wadaagay laakiin xogtu maaha mid aan shalay dara iyo mid ka horeysaba aan helay dadku waxay rabaan in runta la wadaago. Xasan Sheekh markii laga badiyay iyo Sheekh Shariif labaduba waxay ku kulmeen Turkiga. waxaan rabaa sheekha inaad u geysaan warbixintan. anigu sheekhaan taageersanahay حاشا الله الشيخ إنه مدحوينها صوص عدنا قدار ربع لكن شيخ وانين حشود بدن أركتي دير وقول استمجع له إلا أقوش أركو لكن أنا وهالله الشيخ ويحكي حشود أنا وهالله يسقي الشيخ شريف يا حسن الشيخ محمود وحكوا كل من مجال أنكرة لابد يكون يتضوي طبنكي قوشي فرماجي كذب وعز ولا الهربعة وشعب كصومالي يهلا وحي إني متكود لو تناسل الدونو أنا كما هذا بلواننا كما هذا كذب قرق علي مهدي الله ونحرسته أي كل من قرودين علي مهدي أهوان انت الله ونحرسته على سكوخ العناية مدكي لبدو ذا هجانكي هوية أما مدكي مدلون نغلها شيخ شريف عطل السيء تركيا أسأل خصوصية مرسدحات sababaha waan sheegi doonaa Mudullood baa garwadeen ka cashirka marka saddexaadna hadday waxay tageen deegaano badan oo hoostaga magaalada Jowhar ama Shabeellaha dhex ka tirsan iyagoo markaa shacabka shirib iyo ciyaar dhaqameed la ciyaaraya Mudullood meesha ku kulma hadana oo wax isla ka maqaya markaan Xasan Sheekh waxaa laga tabanayaa dhowr wax anigu waxaan Xasan Sheekh 4 sano iyo bar uu dalka maamulayay ninkii xabadka u garaacanayay balwaanna sidoo kale. Xasan Sheekh Maxamuud waxaan 4 sano uu xilka ka degay tiimkii nabad iyo nolol ee cayayaanka hadda dhamaaday mataqaan dhulka galay cayayaankii ma hayno ninkii ay arki waayeen ee sunta ku Xasan Sheekh ah anagaan xabadka u garaacanayna aniga iyo balwaan ilaahayna marqaatiyo ka yahay idinkana marqaatiya ka tihiin laakiin haddii Mudullood gogol isugu yimaad oo ay dhahaan anagu danaheena inta kuma jirto oo intay ku jirtaa maxaan ku diidnaa anaga Mudullood baan shal u hadleene dantooda hadday gaaraan iyo mustaqbalkooda iyo ayatiinkooda hadday ka tashtaanna anagana we have to agree waa inaan iyaga ku raacno Mudullood baa aaminsanahay anaga isma aaminsanin. Xasan Sheekh maxaa lagu haystaa horta Xasan qaladaadka uu galay farmaajona waa galay Sheekh Shariifna waa galay laakiin qaladaadku waa labo qaladaadku waa saddex aan iraado mid Soomaaliya laga galaa mid qabiilka laga galaa midna qofka galo isagay ku egtahay waxba dhagama gelin. Xasan intaas waa kala simeeyaa farmaajo iyo Sheekh Shariif laakiin Xasan farmaajo iyo Sheekh Shariif mid uu kaga liitay oo Mudulloodna ay dhaheen war odayow war maxaa dhacay markii hadda la joogo Shabeellaha dhexe war maxaa dhacay horna waa u yiri wax kale ma dhicina la yiri koow maxaad Mudullood ka galabsata ma taqaan markaasuu dhaa maya ma xasuusataa daadadkii fiiri
مشي لهيري شيكا كوكيراني الموت ورحصل شيخو ما حسوستا دارتكي جوهر يبلدوين كرق مدين إن بيلك عرر درتين أبقال يمدلود لغا مقالو واح نفس ليرا لغا مقالو واح قضب ليرا مربي كل سوغان فيري أبقال ميقصنا مدلود ميقصنا كأمسنا فرماجو مركز دمهوب كي قاتين فاينل مدلود وكل هلا لكن مركز كالي دورنا ما هيريو طلنا ما هيريو سومالنا ما هيريو وهم بو هيريا واجي فدد قادها لكن وحبو هيريا وردادتكي كرق مدى جوهر يبلدويني مركز مدحوينها الصومالية اهيت سفر كاجي جوهر يبلدويني فرق يقول هي متقارا حصل شيء ما يهيروات تقلبدود ما يعلين هيران واحد لا تكتي أجب كستو أو أي بلشة هيران أقلنتي وأدوكيسي وأتكو أمانتها لكن قبيل كأرض أضوء أيات أبجالكي يجريرتي يقال جعلكي كده يعنا شبيلها ده جوا سلام بس وتكتي هيران الراشني عنو سليد وهو البدجيس قبيل كأرض هي قبيل كاجا وحقوق داعيات كأردسي ما أنت مدلوده أباهنتها كورنا الوير رالي هادوير كو لابو شبيلها هوسي فيري مدلودك قدبتو دينا لقلين شبيلها هوسي يهويو نمبر أناقو كوها لينا للمدلود وحقارت كودي سياسيين تودا مدحوين حسنو سياسيين تهوية أيام كوها لينا مقعودة شبيلها هوسي ولغو حسابين لها قبل كبنادر هوينا ما أنت مقامو آلهد إلا لابو قبل يوحكا بدن بامامو لها وأتكون mahadsantahay inaad galmudug maamul sharciyeysan ka dhigtay laakiin shabeellaha hoose ayaad tolki iyo dadkii lahaa inkastoo raxweyn badan xanaaqayaan hadda yaa la doodaa ma taagna dadkii deganaa hawiya u badan ayaad koonfur galbeed ku dartay adigoo dad kale weji ka raadsanaya kuwaadana ka ordaya xasan sheekh maxamuud eeg godob mudulood iyo hawiye aad uga tagta waaye oo ay jiilka dambe ku sheekaysan doonaan وريدنا الحالي هاوي العمامة وكانت حسن ما كنا هتسيها قضب سدحات مقالة مقدشو أديقو سميي كوفر قلبين جبلان هيرشابيلي قل مدوب آيات بنادر كتكتي محاد وقتك وقت ياويس قابية مجرن وحاد وقت كلمويني وحاد قنعيني سريرها شيء إن بنادر أو هوية ماجورتي كويا يمدلود أد مامل نو سمين لو قبصن لا عد دارود أديقو رادينا يرحن وين عد كود أيا دادكاغي كاغا تكتي عد كنوات كويسي شبيلها هوس عد دارود يرحن وين يدر أدو رادينا يو أيا دادكاغي كاغا تكتي إياغينا عد كوا كو ديرين سدح داس قلوب أيا وين ماركا الشريف انتا سنقمت قليني مدلون وحو قبي هوين وحو قبي صومالين وحو قبي إسلامنا وحو سوق قبي ورعودة قامو قداما ودق وافد يا شريف أسوه كوفي دي سدارتا ورنكا وحي مدنا ونكا وحبضا ما إيقف في عاية وداد نواي واتع قلياي مدلون نكا إيقوين وحاد سوقو آنسانا نقراعا واكم الشيخ شريف مرك الشيخ شريف وحانها تايرديس وحان صوب بالعابي وقتي محاكمتي إسلامك وإلهي درتيس وستاقي إثيوبيان لا دير عيد والبا لا سو دير دالكا دفاعيسا مدحوينو ku guuleystay laba jeer ama madaxtinimada lagu guuleystay labada jeerna miiska wada hadalku fadhiyay marna dagaal iyo xarqalad iyo dibna diyaar uma ahayn wuxuuna aaminsan sheekhu in dalka iyo dadku wali u baahan yihiin inta aaminsan anigu aan kamid ahana inay muuqaalka sheegada saarada marka waxaan rabaa muxuu sheekh shariif uga jawaabay boostiyadii Abdullahi Balwan يا عبد القادر بوس محو شيخ شريف uga jawaabay horta xogtaan ma ahayn shacabka raba inaan u sheego xogto haday mid aan sal iyo raad toona lahayn tahay sheekh shariif bogiisu kuma soo jawaabeen wax ka yar 12 saacadood laakiin inuu hore ka soo jawaabo waxay ka dhigan tahay in xogtu xun ka jireen shacabka u sheegaya adiga safiya maxamed فارح أنا عبد القادر واحد بين هذه اللي قال قرو ساعة لكم الجوابي صح واحد بين وبيدي القصة قرواية كجذب لكن شيخ شريف يسقوا كورداية حكت مع ديجا بحيي ديجا بلوان يبوس مع ديجا سيي أي دم قصة جوابي فالحسن الشيخ وجوش اللي قاطعك هالجوابه حسن الشيخ شبكة
because xasan sheekh waa ku faraxsay in la fashilay qorshahan laakiin sheekh shariif waa lagu fahmaa iyo wadaadka intaas horta ha loo sheego waa lagu fahmaa wax la Soomaali wax kuma laha war farmaajo gari ciidan ku difaacayo bareexaan leeyahay reer dalal reer diimi waa lagu fahmaa ma jirto geeska Afrika gobolka Soomaaliya iyo Muqdisho waa lagu fahmaa kama shaqeyso xogtan waxa igula diriray tol aan ka soo jeedo waxa isla leeyahay sirta maxaa u dhiibay war aniga shacabka mudulood iyo kan hawiye iyo kan Soomaaliya meegaha u shaqeynaa habeen walbana halkaan u soo galnaa inaan shacabka ka shaafino warbixinta jirtay marka sheeqa aniga kama xumaanayay boostigii aan soo qoray shalay iyo kii Cabdullaahi Balwaan uu soo qoray saaxiibkay khaliga halkaan ka salaamaya inuu naqdiyo oo ridiyo oo beeniyo lama yaabaye shaatigiisa ku sii xadaanaya aniga ma sheegin ka taa sheekha laakiin sheekhu igu wallahi igu billahi igu talaahi ari ma sheegin ilaha sirdoonka aan ku dhaxleeyahay tolweyni aan ka dhashay aan tolweyni aan ka dhashay waa abgaal ama mudulada tolweynaha u jeedaa abgaal ayaan ka dhaxelay xogtan waana mid aan ku kalsoonahay hadee beentahana shirkii Ankara ama Istanbul ma aha Turkiga aad ku yeelateen markii farmaajo idinka guuleystay oo aad go'aan ku gaarteen xogta waa hay ma soo gudbiyay cali maad Allah naxariisto gurigiisa xogta ma soo gudbiyay maya xogta haatan maxaa u soo gudbiyay aniga horta waxaan jeclaan lahaa xasan sheekh nin academic ah intellectual ah wax soo bartay educated ah dhan kasta looga dambeeyo inuu tartamo waliba ninka farmaajo ugu neceb yahay xasan sheekh waay inuu tartamo oo guuleysanayo waa huba laakiin tolka haduu ku leeyahay hogaanka halkaas noo ah meel loo dhaafo ma laha sheekh shariif hambalyo madaxweynaha xigaba tahay waan ku hambalyeynaya waxaan rabay ama jeclaan lahaa markan hadda halka kaga gudba arinta mudulood habar gidirna inay ku tawfiiqaan murashaxay isleeyihiin kani habar gidir madar kicis ama heraab ama hawiye ama Soomaali wax tari karaa nod inaad toban iska daba yaacdaan hadii kale cuqubadii iyo darbaaxadii abgaal ku dhacday iyagoo 250 cod wata haddana diyaarad ay raaci waayeen gurigoodii iyo banaanbax ka dhiga waayeen ayaa ku dhacaysa habar gidirna waan hubaa qabiil weyn historyga hadda socdana waxa sameeynaa waa nin habar gidir rooble isaga dabcan waa iska leeyahay ma soo sharaxay nin mudan waayahay nin codad badan hilla waayahay laakiin halkaas uu ka dhintay qofka haduu bahda ka dhintay waxba uma qaban kartid habar gidir qabiil nal dhashay oo garabkeen ah waaye anigu hadii tala la soo jeedi lahaana Cabdikariin Guuleed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa tartamaya abgaal waa tashtay hadda waa laga yaabaa maadaama siraan aan bixinay in xasan sheekh soo tartamo oo wixii laga baxo oo shirki adaa fashilay la isku qabsado oo labadoodii iyo wixii murashaxa soo tartama waa laga yaabaa hadday dhacdahay la yaabin waa ka hor dhacnay shariifkan jawaabtiisa u jeedeen marka waxaan rabaa habar gidiray adiguna ku tawfiiq hal murashax haddaan ila hebel ku tawfiiqan ana Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku tawfiiqan ila Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku tawfiiqa aragtideeda halkaan ay murusade aad baan u amaanayaa shacabka murusade beesha murusade shacabka Soomaaliya ma qlijirteen laakiin murusade dadkiisa waa shacabka murusade sida Xasan Cali Qeyre ay ugu daba fayleen oo aniga aan ba aaminsanahay madaxweynaha soo socda inuu Xasan Cali Qeyre yahay sida ugu daba fayleen murusade waxa laga rabaa sidaas inay ahaadaan beelaha kalena waxa laga rabaa inay murusade ku daydaan intaas aan ku soo gabagabeynaa nuxurka warka